السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني سدحليدا سوبنها. barnaamijka saddexleyda suubanuhu waa kulamo kooban aynu ku qaadan doono qaar ka mid ah axaadiista saddexleyda ah ee ka sugan nabi maxamed naseexada naxariista iyo dadaalka wax sheegiisa kolka laga yimaado hibo gaar ah ayaa rabbi u siiyay nabi maxamed sheegista ereyo kooban oo macnayaal aad u ballaaran leh sidoo kale waxa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam xirfad heer sarreysa u lahaa kala hormaynta iyo kala habeynta ereyada uu ummadiisa gaarsiinayo kani waa mid ka mid ah badda aan xeeliga lahayn ee axaadiistiisa oo ereyo ku astaysan tirada 3 fariinta uu barnaamijkani sidaana waa inaad daawada dhugato oo dheehato ereyada suubanaha sallallahu alayhi wasallam kadibna aad adigu kala baxdo fariinta ay sidaan haddii ay tahay waajib uu ku farayo xumaan uu ku diidayo ama waana kaaga timi nabigaaga aad jeceshahay xadiidkan waxa warinaya saxaabiga la yiraahdo Abu Hurayra oo magaciisu ahaa Abdurrahman ibn Sakhr waxa uu leeyahay waxa uu dardaarmay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam 3 arrimood waxa uu leeyahay kow inaan soomo bil kasta 3 maalmood oo kamida 2 in aan tukado salaada loo yaqaano duxada 3 iyo in habeenkii marka aan seexanayo aan ugu dambaysiyo oo aan tukado salaada loo yaqaano witrka xadiidkani waa xadiid ay soo saareen Bukhari iyo Muslim Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waxa uu leeyahay waxa uu dardaarmay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam 3 arrimood oo arrinka koobaad uu yahay bil kasta in 3 cisho ka soomo 3 cisho oo noqon kara bisha bilowgeeda ama dhexdeeda ama xageeda dambe 3 cisho oo lagu dhuftay 12 bilood waa 36 cisho 36 ka cisho oo min 10 ajar lagu dhuftayna waxay u dhigmaan 360 sida awgeed ayaa waxa ka sugan nabiga inuu yiri qofka 3 cisho bil kasta sooma waxa uu dhigmaa sidii qof sanadka oo dhan soomay salaada duxaduna waa qodobka labaad waa salaad ka bilaabanta 2 ragcadood ilaa 8 ragcadood ilaa iyo ka badan oo laba ah waxana la tukadaa waqtiga ay cadceedu soo baxdo waran in leeg wixii ka dambeeya ilaa duhurka ka hor nabiguna kaleey salaatu wasalaam waxa uu sheegay in 360 xubnood oo qofka bini aadamka jirkiisu ka kooban yahay lagu yeesho sadaqadaasna ay ka gudi karto 2 ragcadood oo uu tukado duxada ereyga ugu dambeeyay iyo talada ugu dambaysa waxay ahayd in habeenkii marka uu seexanayo uu ku seexdo witrka oo ah 1 ragcad oo ugu dambaysiyo salaada uu habeenkii tukanayo xagga horena waa uu ka tukan karaa xagga dambana qofku waa uu ka tukan karaa rabbi khayr adduunyo iyo mid aakhiraba hayna waafajiyo